nin qayb ka ahaa burburinta masjid lagu magacaabi jiray Babri ee ku yaalay magaalada Ayodha ee dalka Hindiya sanadkii 1992 ayaa qaatay diinta Islaamka wuxuuna ninkan dhisay in ka badan 90 masaajid si uu gafkiisa u saxo waxaan u nadray oo aan u niyeystay ayuu yiri inaan masjidkaas u burburiyo ilaa haram oo kadibna uga dhiso macbad laakiin markii aan garowsaday gafkii iga dhacay waxaan balan ku qaaday in aan dhiso 100 masaajid ayuu yiri ninkan lagu magacaabo Balbir Singh waxa uu kamid ahaa koox Hindu ah oo sanadkii 1992 burburiyay masjidka Babri ee ku yaalay magaalada Ayodha taas oo ay daba xigtay rabshado iyo iska hor imaadyo ay ku dhinteen 2,000 oo dad ah ay muslimiin u badnaayeen markii aan burburinay masaajidka waxaan ku laabanay guryaheeni halkaas oo sidii geesiyaal naloo soo dhaweeyay ayuu yiri laakiin marnaba ma dareemin deganaan iyo xasilooni ruuxi ah sidaas daraadeed waxaan la kulmay wadaad daaci ah oo lagu magacaabi jiray Maulana Kalim kadib faham buuxa oo uu ka qaatay micnaha xeesha dheer ee diinta Islaamka bishii December sanadkii 1993 ayuu islaamay maanta Singh magaciisa waxa uu bedelay Maxamed Caamir wuxuu guursaday gabar muslimad ah wuxuuna maamulo ama hoggaan u yahay madrasad islaami ah oo ku taala magaalada Hyderabad waxa uuna dhisay ilaa in ka badan 90 masaajid